Soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaa casharada xiiso badan idinka soo diyaariyey kulankii ama shirkii madaxda China, Russia and North Korea leaders ee ku yeesheen waddanka Chinaha. Ciwaanka cashirku waa The Meeting of China, Russia and North Korea Leaders. Kulankii ama shirkii saddexda hogaami ee ku yeesheen waddanka China. Who met yaa kulmay? Xi Jinping, President of China, madaxweynaha China. Vladimir Putin, President of Russia, madaxweynaha Russia. Kim Jong, Leader of North Korea, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Halkee, anwaan iyo goortee. Halkee iyo goortee ay ku kulmeen? They ayaga met in waxay ku kulmeen Beijing, caasimadda Beijing, China ee waddanka China, on September 3, bishii September 3, 2025. Idaas waxay ahayd the 80th anniversary, sanad guuridii 80aad of the end dhamaadka of World War II, dagaalkii labaad ee adduunka in Asia ee Asia. To remember this, si loo xasuusto midaan. China held a huge military pride. Waddanka China ayaa qabtay dhoolatus military oo weyn. With many soldiers, askar badan, tanks, taangiyo, missiles, gantaalo, and planes iyo diyaarado. What happened? Maxaa dhacay marka? The three leaders, saddexda hogaamiye, stood together ayaa si wada jir u istaagay at the pride dhoolatuska. China showed, China waxaa soo bandhigay its powerful army, awooddiisa ciidan, and new weapons iyo hubkiisa cusub. Madaxweynaha China ayaa dhahay, the world adduunka must choose waa inuu doortaa between waxa u dhexeeya peace nabad or war ama dagaal. Putin and Kim's private meeting, kulanka gaarka ah ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Russia. After the pride dhoolatuska kadib. Putin and Kim had a meeting ayaa kulan hore u lahaa in Beijing, caasimadda Beijing ee dalka China. Kim said North Korea, Kuuriyada Waqooyi, will give waxay sii doontaa Russia full support, taageero buuxo, including waxaa ka mid ah weapons, hubka, and military help iyo caawin military for the war, dagaalka in Ukraine ee kula jirto Ukraine. Why is it important? Maxay muhiim u tahay? The meeting, kulanka, shows ayaa muujinaya these three countries, saddexdan waddan, are becoming inay noqonayaan close friends, saaxiibo dhow. They all want, dhammaantood waxay doonayaan to challenge inay la loolamaan Western countries, waddamada galbeedka, like sida the US and Europe. But it is not an official alliance, laakiin ma caddo isbahaysiga. Each leader, hogaamiye kasto, still weli focus wuxuu diiradda saarayaa mainly inta ugu badan on their own countries' interests, danaha waddamadooda. Russia is under sanctions, waxay ku jirtaa cunaqabatayn, and isolation iyo go'doomin because of ayadoo ugu wacan tahay the war in dagaalka kula jirto Ukraine. Cunaqabatayn iyo go'doomin ayaa Russia saaran maadaama dagaal la gashay Ukraine. So sidaas darteeda idinidhis waxay u baahan tahay friends, saaxiibo. North Korea, Kuuriyada Waqooyi, wantis waxay rabtaa recognition, aqoonsi, and to show in loo muujiyo it is not alone, inaysan keligeed ahayn. How do other countries see it? Sideeba waddamada kale ay u arkaan? Kuuriyada Koonfureed ayaa ku hormaraynaa maadaama Kuuriyada Waqooyi oo khilaaf kala dhexeeyo. South Korea is worried, ayaa ka walwalsan, and said waxayna dhahday it will keep watching, isha ayaan ku hayn doonaa them ayaga closely, si dhow. Many Western countries, waddamo badan oo galbeedka ah, see this ayaa midaan u arko as a sign of inay tahay calaamad ka mid ah a new power group, koox cusub oo awood leh against ka hor imaanayso the West galbeedka. In short, in kooban, the leaders hogaamiyaasha of China, Russia and North Korea
Made in Beijing ayaa ku kulmay caasimadda Beijing to show si u muujiyaan strength and unity, awoodda iyo midnimada. They are not forming ma sameynayaan a formal alliance, is-xulafaysi caadi ah. But laakiin they are clearly waxay si cad supporting ay u taageerayaan each other midba midka kaleeto more than before ka badan sidii hore. Haddii intaana la soo gaartay fadlan muuqaalka share garay, page-kana soo follow garay saa ula socotid muuqaalada aan soo gelino page-keena annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Mahadsanidin.